السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركله واحد كسو دواتان وقال كلا برنامج كيني فكرة إفالو فكرة دمانتا عن جعلها إن إذن لو داغو وفكرة لحريرتا أما كشا كينيسا أرمها سياسة مقعيدا وحالي رهدا identity politics هدي أينو أفصوم عليينو وحين قونيسا سياسة أقونسيغا maxaa laga wadaa marka see loo isticmaalaa yaa isticmaala faa'iido iyo khasaaro maxay leedahay identity politics waa in qofka kursi ama jago ama boos ama xil lagu siiyo isagoo markaas lagu eegayo cidda uu yahay dadka uu yahay qabiilka uu yahay raaska familka jifada iyo reerka uu yahay ama qofkaas waxaa la fiirinayaa kooxda uu yahay movementiga iyo dhaqdhaqaaqa iyo xarakada uu ka mid yahay ama qofkaas waxaa la fiirinayaa magaalada iyo gobolka uu ka soo jeedo oo uu ku dhashay identity politics faa'iidada ay leedahay waxaa weeye dadkaas qofka uu ka mid yahay in ay dareemaan matalaadaas oo iyagu ay aaminsan yihiin cadaalad in ay ku helayaan faa'iidada ugu weyn ay identity politics leedahay waa taas weeyaan badanaa identity politics waxaa laga dhexlaa khasaaro badan qofka waxaa laga yaabaa in uu ku yimaaday isagoon wax kala haysan isagoon aqoon lahayn isagoo wax qabad aan lahayn waxna qaban karin isagoo markaas waxaa waaye qadiyad iyo mabda midna aan lahayn identity politics dadka badanaa isticmaala waa siyaasiyiinta aragtida fog aan lahayn siyaasiyiinta aan ujeedo siyaasadda ka lahayn siyaasiyiinta aan waxaa weeye hadaf siyaasadda aan ka lahayn bulshadana aan ka lahayn identity politics dadka aadka u soo saaray oo aaminsanaa oo buwaagta ku qoran waxaa weeye nin la oran jiray Karl Marx oo markaa aaminsanaa dadka in ay kala galaasis yihiin galaasis taajiriin ah kuwa dhexe iyo galaas hoose oo faqiiriin ah marka dadkana saas in waxa weeye lagu maamulo laguna xukumo identity politics waa siyaasadda maanta dalkeena looga dhaqmo siyaasiyiinteena ayaa ku dhaqma ismadeena ayaa ku dhaqma dadka siyaasadda ka shaqeeya ayaa identity politics ku dhaqma qofka waxaa jago boos xil iyo kursi lagu geeyaa isagoo markaa loo fiirinayo qabiilka uu yahay 4.5 identity politics marka waxaan jeclahay in aad fahamteen khayr badan baa idin rajeynayaa waxaan jeclahay videogan ama muuqaalkan wax badan inaad ka faa'iideen muuqaalkan dadka kale la wadaaga dadka kale gaarsiiya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu